بريهن هذا الباصون وضع nin cirdigayga iyo sharaftayda ma intii diintu ii ilaalisay ee sharciga Soomaaliland ii ilaaliyay inta meel kaga dhacay laakiin dadkiiba intii iga mudnayd ee sharafta igu lahayd iyo salaadiintii reer igu qiimo badan oo igu sharaf badan oo aniguna iyaguna ka mid ahay inay microphone baarinta la yimaadaan hoos inta igu sheegaan aan hoos u dhameeyay haday satimi maanta laga bilaabo saacada aynu joogno odaygaas waa iga fasax waana saamaxa waxaanan ku darayaa warbiyo kala Hargeysa oo dhan ku fadhidaan intiina halka fadhida casarna oo leedaamay aabbayo maanta iga hoosay igu duceeya hooyaday qof weyna oo hadalkaas erdigeed iyo sharafteeda inta taabanaya lagu tuurayna iyadana igu duceeya ducadaas aanu qaadanay anna waan saamaxay maanta ku goodo hadalkaas halka haynaga xirmo Hargeysa salaadii casarna wayna sugaysaa hadalka badin maayo waxaan doonayaa in anigoo ku hadlay afka golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxaan u mahadnaqaynaa walaalkayo madaxweynaha hore caasimadda Cabdicasiis Cagweyne waxaan uga mahadnaqaynaa sida garashada leh odaynimada leh ee uu maanta Hargeysa isugu keenay waana arinta waana ka kaftamayaa golaha deegaanka Hargeysa ay maqlaan horta golaha deegaanka Hargeysa waxa ka qaldan maanta aan ogaaday waa golo bilaa Cabdicasiis Cagweyne waa golada anigu wadaan si kasta u dadaalay intaas oo oday suldaan caaqil aqoonyahan mudantii magaalada iyo labeenteedii way adagtay inaan isu keeno golaha iyagana ma laanin sifooyin kaalihi kuma jira hadduu saqarsanayo midayna waa halka iga soo arkay hal soo baxo oo sidaa uu jecel sheegay waanooyinka faraha badan ee maayirkeeni hore inoo jeediyeen iyagana waa guntanayna waa qaadanayna intaan ay ugu socoto waa qaadanaya xildhibaanadana waxa laga rabaa inuu sidii Cagweyne oo kale inuu noqdo ragga isu doono magaalada isu doono oo marka waxay naga sii noqdaan arrinkeena Hargeysa ugu yaala talabaadna waxa weeyeen iyadoo doonayaan ka hadlo badinba maaye baryahan hadal baa soo noqda nin cirdigayga iyo sharaftayda ma intii diintu ii ilaalisay ee sharciga Soomaaliland ii ilaaliyay inta meel kaga dhacay laakiin dadkiiba intii iga mudnayd ee sharafta igu lahayd iyo salaadiintii reer igu qiimo badan oo igu sharaf badan oo aniguna iyaguna ka mid ahay inay microphone baarinta la yimaadaan hoos inta igu sheegaan aan hoos u dhameeyay haday satimi maanta laga bilaabo saacada aynu joogno odaygaas waa iga fasax waana saamaxa waxaanan ku darayaa warbiyo kala Hargeysa oo dhan ku fadhidaan intiina halka fadhida casarna oo leedaamay aabbayo maanta iga hoosay igu duceeya hooyaday qof weyna oo hadalkaas erdigeed iyo sharafteeda inta taabanaya lagu tuurayna iyadana igu duceeya ducadaas aanu qaadanay anna waan saamaxay maanta ku goodo hadalkaas halka haynaga xirmo Hargeysa timi Hargeysa Ilaahay baa odayga dhigay Hargeysa midu maana ogeyno waxay ku nasiib baday nimaan xitaa arinta kursiga inuu ilaaliyo suti gaashaanta lagaga fiican yahay baan ahayo kursigaanu ma jiciyo wallahi marar badan saa jecel sheego waan isaada waxan baa ma danahaaga iska qabsatay haddana waxaan idhahdaa inta wanaagsan ku ducaynaysa wax badan ka filaysa intii ku dooratay iyo intii aan ku dooranay wanaaga iyo waxaad qabatay arkaysa iyo golaha wanaagsan ee ku karaameeyay ku shafay ee ku doortay malaaka ama qabato waan iska tagayaa baan saada laakiin Hargeysa oo dhan baa ku fadhidaan saak waxa qaldan haduu aniga yahay Hargeysa waxa ka qalooca aniga yahay oo midnimadeeda wixii xumeynay aniga yahay way fududay
way fududahay wax ku fududahay waxaan ahay nin la qaban karo la sixi karo la toosin karo haddii wax ka qaldanyihiinna loo sixi karo haddii wax ka qalloocdeenna maaha loo toosin karo odayaashayda ay ugu filan imikaba sidaa aad maaragtay ii qaban kartaan ee wax iga codsan kartaan bay ku xidhan tahay midnimada golaha midnimada magaalada Hargeysa golaha deegaanka Hargeysa odaygoodina fadhiyo mideeyo ku magac dheer odayga isku kaayahaya imika nin ay daruus la odaysna ku soo beeray labada oday de golo midnimaan nahay magaalada Hargeysana golo midnimadeeda ka shaqeynayaan nahay ilaahay idankiina waa sii dadaalayna in midnimada magaalada Hargeysa inaanu ka shaqeyno xildhibaan mideeyada dahool weyn baa u taalo inuu isu doono oo magaaladana maalin kale gogol u dhigo oo sida Cabdicasiis ugu keeno ayaa loo baahan yahay governorka bagigeena ilaahay karaamay cali inuu isna magaalada mar dambe waan isugu kiyeedaya midnimada magaalada waa ka shaqeysanayna horumarkeedana waa ka shaqeysanayna hawl weyn baa inoo taala adduunyada walaalayaal ogtiin maalin dhow habeen dhoweyn magaalada Mareykanka ku faani jiray California hal habeen bay gebigeedaba ku shubbeeshay shaqo badan baa inoo taala waa heen baynu ka soo kaban lahayn dhaqaale ahaan ilaa maanta magaaladeenana say soo dhaxdaasantay waa arkaysaan hawl qeyla iyo dhaliilka weyn baa inoo taala magaalada hagaajinteedii baa inoo taala waxa dhaqaalaha haysateen iyo waxa lacag aynu haysanay Hargeysa dhex yaala Soomaaliland oo dhan baa isugu timaadaan shil meel kale yaala ma jiro dabka halka ka dhacay ilaahay ugu keenay hadduu magaalada maanta qabsado waxa inoo baxaya ma jiraan marka inaynu dadaalka galo magaalada nidaamino oo wadooyinkeedii wada furno oo gabcaa is qabsano ayaynu u baahanahay ilaahay hayna la qabteen ilaahu magaaladeena dadkeeda inoo mile magaaladeena nabadeedana inoo adkee madaxdana ilaahu inoo wanaaji qoladeedan hadda joogta kuwii tagayna ducaynu ku sagooteena qoladeedan joogtana ilaahay hana la qabto kuwa soo socda naga dambeyn doona qaar anaga naga wanaagsan Allah ka yeelo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi